dhawo shirkadda Maria Perfumes and Cosmetics guri kasta iyo goob kasta shirkadda Maria Perfumes waxay diyaar kula tahay mar walba inay ka haqabtirto adeegii ugu dambeeyay ee udug iyo waliba cosmetics intaba shirkadda Maria Perfumes waxay iibisaa waxyaabo kala duwan sida uduga kareemada make-up-iska hablaha waxyaabo fara badan oo aad u isticmaali kartid noloshaada daily ah shirkadda Maria Perfumes waxay mar walba diyaar kula tahay inay ka haqabtirto baahidii udug ee ugu dambeysay adduunka waxay iibisaa cadaro inta badan laga keeno wadanka banaankiisa laguna aan isticmaalin wadanka hadii aad aragto ama aad soo booqato shirkadda Maria Perfumes waxaad ku arkaysaa alaabo kala duwan oo aad inta badan ku arki jirin wadanka gudihiisa inta dheer waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada kaaga muuqda shaashada السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دوادا برامج كني ماندير يا محا عصب ولا باكل سبعين كتير تيجي عالمي جالسون يفتي في حرف الحيل كله يهم هذا الأسعار أنا برامج كألا ونسي بالسيارة مو نحن العبيد من منطقة برامج كسان هروي كل شيء جنا وحنا كسر كل نقابة نقول ما قاعد دفني هرم مريه بدأ وأنا كسر عسنا معنا والبو خميسة وكسر أميرة أول حلابور عمله هو وقارة هذا برامج كان مانته وحمر تيجوا وأنا قديرة ومريم أحمد عمر ومحسنتها من مانديق soo dhaweyntaad igu soo dhaweysay barnaamijka waana ku dhawahay barnaamijka Maandeeq iyo maxaa cusub iyo waliba mawduuca ay aad dadku u xiiseynayaan ee ah horumar hibadaada oo aad ku soo casunto isbuuc walba qof kasta oo dhalinyaro ah lehna hibe isaga u gooniya Maryam waa maasantahay Maryam waxa tahay inaan dhalinyaro ku dhaqo gobolka Sool bal adiga bulshada aan iskiin bare Maryam waa tuma waa mahadsantahay mar labaad munaay anigu magacaygu waa Maryam Axmed Cumar waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Sool waxaan waxbarashadeedii hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed ku qaatay isla gobolka waxaan bartay background education kayga hadaan yar ku noqdo علومته كمبيوتر كتكنولوجيا ده سنتكي 2017 بان ديجريغي كوباد كقلي جبيه waxaan hadda muddo macalin ka ahaa ama bare jaamacadda gobolka Nugaal University sidoo kale waxaan aasaasay business ama ganacsi ku shaqeeya mareegtida online internet service-ka oo aan ugu magac daray Maria Perfumes and Design kaas oo aan ku iibiyo waxyaabaha uduga ah ee ay dadku isku carfiyaan sidoo kale guryaha lagu carfiyo ama lagu udgiyo waxa kale oo dheer barnaamijka uduga oo aan iibiyaa isagana waxyaabaha styliska hablaha dharka ay habluhu xidhaan sida xijaabada cabaayadaha khamaarada iyo dhammaan waxyaabaha hablaha dhalinyarada ay ku labistaan waatay Maryam waa maasantahay kolleegii bulshada isbaratay waxaan ku rajaynaa Maryam ka bogteen magaceeda iyo muuqaalada Maryam ganacsiga aad haastay xilli ma ayuu ku dhashay waa mahadsantahay Munay ganacsigu wuxuu igu dhashay kulay qof kasta oo dhalinyaro ah oo arday ah marka uu joogo jaamacadiisa ama uu wax baranayo waxa uu jecel yahay in uu sameeyo wax isaga u gooni ah ama u gaara taa macnaheedu waxa weeye qofku in uu yeesho wax creative skills xirfad isaga u gooni ah oo bulshada la dhex yimaado waayo marka uu soo qalin jabiyo ee isaga iyo bulshadii ay is hor yimaadaan waxa laga rabaa in uu productivity yeesho ama wax soo saar u yeesho wala socotaa oo wadanku burbur baa jira male shaqo abuur dhalinyaradu ma haystaan sidoo kale ma hayaan shirkado iyo hay'ado iyo waxyaabo sameynaya maalgelin ama investment marka ardaygu wuxuu ku khasban yahay in uu fakaro si uu marka shaqo u sameeyo bulshadana uu wax ugu soo kordhiyo taa iyadoo ay jirto baa waxaan isku dayay markii aan soo graduate gareeyay jaamacadii in aan la imaado wixii hore jiray wax ka duwan ama wax hore oo yaalay aan ka bedelo qaabkii hore ee ay dadku u haysteen oo aan u dhigo si cusub anoo ka faa'iideysanaya aqoontayda aan bartay jaamacadeedii ka soo bartay ahaa علومته تكنولوجيا iyo computerka in aan soo kordhiyo ganacsi ku shaqeynaya qaab online u shaqeynayo isoo bulshada hore u haysan isla markaa dhalinyaradu ay ila arkaan oo ka faa'iideysan karaan iyo dhammaan dadka gobolka ku noolba waatay Maryam qof kasta kale online weeyaan guriga ugu geysaa inuu ka soo dalbado ma leedahay macnaha wax ku soo dhaweynaya dadkii bulshada inay wax u geyso sida gaari ama macnaha wax ku fududeynaya inta jira caqabad ka qabtada marka dadka guriyooda wax ugu geyso ama goobahooda shaqo
walaahi horta markii aan barnaamijkan aan bilaabayay wuxuu ahaa keliya uun riyo igu jirtay oo aan jeclaystay inaan bulshada u soo bandhigo si markaa aan bulshada ay uga faa'iidaystaan waxyaabaha xirfadaha cusub ee aan u wado caqabaduhu koley way iska badan yihiin oo dareemi kartaa marka uu qofku xirfad cusub uu bilaabayo bulshadiina dariiq iyo way aysan hore ugu shaqayn jirin uu la imanayo koley bulshadu inta badan bani aadamku waxaa la yidhaahdaa al-insaanu caduwun limaa juhil qofka bani aadamka wuxuu cadow u yahay ama uu ka hor yimaadaa waxa uusan aqoonin marka way adkayd in ay bulshadu aqbalaan shay aadan arag oo tusaale udug weeye wixii badankiisu ama waa maro shay aadan arag oo aadan urin cadar ama air fresher ama carfiso aadan arag baa waxaan kaagaga iibinayaa baraan iyo magacaasay leedahay qiimahaasay leedahay halkaasaan ku soo xayeysiiyey bejka ka daalaco gruubka whatsappka ka arag websiteka ka arag kadib soo dalbo runtii bulshadu way ku adkaatay inay markii hore aqbalaan waayo waxay tegi jireen meheradda markii ay tagaana shaygii way tastagarayn jireen doorashay geli jireen laakiin shaygan waxaad ku iibsanaysaa magac baad ku iibsanaysaa just desaynka noocaas ama haysaa marada desaynkaa leh qiimaheedu waa intaa way ku dul qoran yahay sida ay tahay descriptionkeedii qeexideeduna iyada ayay ku dul qoran yihiin marka intaad ku dhex jirtay ganacsiga macbiir intee le baad heshay walaahi munaayi horta macaamiishu waxay ku xidhan tahay qofka bani aadamka ah ee markaa isagu xirfadan la yimi kulley business walba marka la abuurayo dabcan macaamiishiisa isagaa wata qofka ownarka ah ama businesskan iskale ama qofka loo dhiibo ee businesskan maamulaya isaga uunbaa bulshada ugu dhigi kara waxaan inuu yahay wax qurux badan oo ay aqbalaan si fudud ku aqbalaan isla markaana ay wax ka iibsadaan ama caqabad iyo obstacle ku noqon kara oo hor istaagi kara isaga sababi kara waxaan aaminsanahay qofka ganacsadaha isaga mas'uulka ah inuu macaamiil badan helo iyo inuu macaamiil yar helo haddaan kugu noqdo macaamiisha businessku maanta uu leeyahay runtii way badan yihiin marka loo eego muddadii uu businessku jiray oo aad koobnayd kolley deliveryga gobollo badan baan gaadhsiinaa sida gobollada hadeer deegaanada dhadhow garoowe gaalkacyo boosaaso berbera hargeysa gobollo badan oo markaa gobollada inagu xeeran ah ee Soomaaliya intii aad ku dhex jirtay Maryan horta markii fikirkan aad la timi ma jira cid aad la sharkarayso ama aad tiri ama dhalinyarada jaamacadda ha ahaato ama faamilka ka ahaato cid aad tiri arrintan sameynaya oo ka hor joogsatay ama kugu dhiirigelisay wallahi kolley marka aad wax cusub aad keento wasaan markii hore sheegay oo dadku waxa cusub way neceb yihiin iyagoo ka cararaya marka hadhow maxaa ka dhalan karaya oo waliba xagga negative-ka ah maxaa ka dhalan kara oo dhibaato ah ama qofkan soo gaari kara ama marka lacagta iyo waxa uu gelinayo soo gaari karaya runtii bilowgii barnaamijkan cid kasta oo aan u bandhigay waxay igu yiraahdeen iska daa oo ha gelin haday family ahayd iyo hadii ay asxaab ay ahaydba dadkii oo dhan waxay yiraahdeen fadlan iska daa waayo bulshadu ma aqbalayaan maaha bulshadeenu bulsho tiknoolajiyadeed maaha shayba halka ku soo xayeysiinaya qiimaha ku soo dul qoray ma taabanin maad urinin maad arag iibsa hadana bulshadeena markaynu eegno way adag tahay bay yiraahdeen marka ay iska gelin lacag laakiin maadaama ay ahayd idea iyo riyo kale anigu aan lahaa waxaan ku tala galay in aan socodsiiyo bulshada soo bandhig waata Maryan inta badan hooyinka Soomaaliyeed intooda badan adigu ma laakiin sidahay wurin ay gabar tahay sidaan ogsoonahay gabadh baad xaas maadan noqon ku qorshaysan tahay hadii aad xaas iyo nin barakaysan Ilaahay ku siiyo inaad iska dhaafto ganacsigan oo aad reerka iyo meelaha ka ekaato wallahi horta laba wax baa kala jira munaay riyada ganacsi aad leedahay noloshaada caadiga ah yani life stage-kaaga caadiga aad leedahay iyo guurka waxaan u arkaa inay kala duwan yihiin yani kulay hablaheenu caadi ahaan marka ay wax baranayaan ama ay ka soo baxaan jaamacadaha ee ay yimaadaan suuqa ay bulshada u yimaadaan hadii ay ganacsi bilaabaan iyo hadii ay shaqo bilaabaanna mostly waxay u badan yihiin hadii ay guursadaan inay haraan oo ay guryaha tagaan
laakiin taa waxaan u arkaa inay tahay aaminaad khaldan oo aynu inagu haddaynu hablanahay aynu iska dhaadhicin waayo guurku marka uu noloshaada ku soo kordhayo waa dhammaystirkii noloshaada yacni waxay ahayd haddii aad riyo ganacsi lahayd ama aad shaqo haysatay oo aad guursatay daldalooladii iyo godolooladii aad lahayd markii waa inay dhammaystirmaan waayo markii hore keli baad ahayd oo ma aadan haysan qof hore kuu socodsiiya ku garab istaaga investment haddii uu heli karayo kuu sameeya kugu saacida waxyaabaha aadan adigu gooni ahaantaada aadan soo qabsan karin waxaan aaminsanahay guurku in uu dhammaystirayo noloshaada ee wax caqabada uusan lahayn taasina inay gabdhuhu hadhaana way tahay khalad aynu inagu iska dhaadhicino isku programin marna waxaad anigu hadda nin guursaday hadii kale ganacsiga uu soconaya طبعا ما حد متاريا طبعا wax isku xidhan maaha bal ee waan ka sii badinaya inuu gobolada iyo wadamada kale u gaadho insha Allah waa rajaynaa kara inta badan waxa ay rag Soomaaliyeed marka caad badan ay ku hayaan mid fahamka Ilaahay ku siiyaan baan ku rajaynaa raaskeena kale in iska sii socono maryanay jeceshahay in imika de online baa xana ku xidho kala iibsada shirkado waaweyn baad arkaysaa online way rax kale ku iibin ma jeceshahay iminka online-ka guud iminka muddo ku shaqeynayay inaad ka sii fadhiso oo waliba uu company noqdo wallahi kulay waxa jira wax la yiraahdo vision iyo mission ama higsi iyo himilo kulay visionka aan rajaynayo ama waxa ii muuqda ii bidaamaya waa in aan yeesho company weyn through the online ama website weyn oo like sida Alibaba oo kale ay dadku wax ku kala iibsadaan oo Soomaalidu ay ka baxaan meherada ay u safrayaan ay gaariga u raacayaan laakiin adoo tareen gadanaya ama gaari gadanaya ama waxa doonta gadanaya inaad website-ka description-kiisa ku qorto hadii aad iibinaysana aad dhigto hadii laga aad soo iibsanaysana aad soo iibsato adoo isticmaalaya internetka طبعا waatay hablaha facaaga in dhalinyarada shaqalaan baa jirta dadka eego dawladda la'aanta awgeed dhalinyarada inta badan haweenka marka la eego guryaha iska fadhiyaan maxaad ku dhiirigelinaysaa gabdhaha aad waliba singalka ah oo waxbarashadoodii soo dhammaystay haddana xaafada iska dhex fadhiya hablaha runtii mararka la qalin jabinayo dhammaan kulli anigu waan u fiirsaday jaamacadaha Soomaalida intooda ugu badan dadka ka qalin jabiya hablay u badan yihiin haddana dadka ugu badan ee camal la'aantu ay ku dhacdaa waa hablaha sababtu waxa weeye inatu marka ay wax baranayso laga soo bilaabo dugsigii hoose ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo jaamacadda waxa la aaminsiyaa cuqdad ah inaysan iyadu marnaba inanka aysan gaadhin wax kasta oo dhac haday ee haysato iyo haday dhii haysato inaysan inanka marna aysan la sinmayn markay jaamacadda joogto waxay haysataa aaminaada ah markay soo qalin jabiso mar waliba inay camal la'aan mudan tahay oo wayba ku mahmahan habluhu waxay dhahdaan si kasto inuu wax barano wax kasto inuu sameeyno college koon bayna horaan dooranayaan iyagoo yani ka wada waxa la yiraahdo inay habluhu mar walba iyaga iyo jikada iska dhow yihiin oo ay adag tahay inaan Soomaaliyeed inay soo baxdo oo suuqa loolanka tartanka ganacsi ay timaado iyadoo bilaajka marka kulli aan waxaan kula talin lahaa hablaha maadaama cuqdadaasi ay jirto mushkiladaasina ay taagan tahay in horta markay jaamacadda ay joogaan han ay yeeshaan oo ujeedo ay wax u bartaan qofku waxa weeye markuu jaamacaddiisa joogo ama waxbarashadiisa uu joogo waa inuu ujeedo leeyahay baabaas waa inuu leeyahay qof without baabaas ah oo bilaa ujeedo ah way adag tahay inuu noolaado ama uu hadda wax soo kordhiyo waxa la yiraahdaa qofka dhalinyarada ah marka uu wax baranayo waa inuu ku noolaadaa wixii uu bari u noqon lahaa saale haddaad doonayso inaad noqoto dhakhtar markaad rabto inaad dhakhtar noqoto mustaqbalka ama aad jaamacad dhakhtarnimo aad dhiganayso waa in qolkaaga gurigiina aad ka degan tahay baa la yiraahdaa uu u eg yahay dhakhtar laakiin waa inaad goonka haysato راقير كلا ترتر لها وين هيسته وإن قلك داوين يجرجار كدق laga heli karo even hadii qof guriga ah ama qof ku dhow saarha dadka soo dhan ay wax noqdaan oo kale inaad sameyn karto hadii aad tahay arday culumta computerka ama ganacsiga waxa soo kala dhiganayo oo kale waa in laga helaa principleski iyo xeerarkii waxyaabaha culumtaasi ay lahaayeen yani gurigaaga marka la soo galo
ama meeshaada ku khaaska ah qofka soo gala waa inuu oran karaa engineer hebel baa halkan degan ama engineer hebel halkan degan ama manager hebel baa halkan degan ama manager hebel halkan degan bimacnaa noloshaadu internally waa inay ka turjumaysaa waxaad berito noqon lahayd markaad ku nooshahay markaa riyadaada aad ku dhex nooshahay baad hadhow berri bulshada u soo saari karta laakiin haddaad bulshadii ku soo qalin jabiso adigoon wax ujeeda a lahayn wax qorshe ana aan ka lahayn noloshaadii hadhowto hadafna aan lahayn waxaad noqonaysaa inaad jahajahayso oo tidhaahdo xaggee baan tagaa aad marba meel siifi ula cararto lagu rejecti gareeyo marba meel aad tagto marba mid kadib haddii nasiibku shaqo uu ku siiyo shaqada aad ku dambeysho oo hadhowto aad qof choice le aadan noqon weyno laakiin qofku haddii uu markiisii hore riyo lahaa simbali riyada unba wuxuu u raadinayaa qaabkii ay u socon lahayd marka hablaha waxaan siinaynaa talo ah inay markay jaamacadda joogaan han yeeshaan waxbarasho quality-lana ay bartaan marka ay joogaan jaamacadda intaysan jaamacadda soo gelin inay doortaan waxa ay baranayaan qofku sida uu u yaqaano marada ku soo baxaysa yani anigu waan aqaanaa maradan ku qurux badana adiga muna waa taqaanaa marada aad ku qurux badan tahay isoo dhan samunay markaad xirato marada fit baad ku qurux badan soo waxbarashaduna iyaduna waa saas oo kale waa inuu qofku barto wixii ku soo baxaya isaga uu ka soo bixi karo hadhowna bulshada uu ila iman karo ujeedana uu ku daro aad iyo aad haweenku marka waa inay gabdho markay soo qalin waa inay higsi yeeshaan taasoo gabagabaysay waa tahay Maryam badan haweenka Soomaaliyeed si kastoo loola taliyo ama talo loola wadaago talada ma qaataan maxay tahay soo talo oran karaan waxaad arkaysaa haween badan oo meelo badan ka hadlaya oo inta badan u doodaya qoondada haweenka ama waxyaabaha dumarka ay ku leeyihiin ay xaq u leeyihiin dumarka inta badan iyagu ma eegaan waxa laga yaabaa labo iyo hal kamid ah inay arrinta ka doodo iyagu la u arkaan bilaa macne maxaa la oran karaa taasoo horta habluhu talada ma qaataan waa su'aal marka hore hablaha ayaa la taliya taas la isweydiinaya inantu sida markii hore sheegnay yani noloshu waa levels way isdaba socotaa inantu marka ay dhalato waxaanu leenahay xeerar soo jireena oo ay Soomaalidu leedahay xeerarkanaas waxa weeye horta inantu marka ay dhalato mar walba waxa la socota huq iyo naxdin baa la socota yani reerka haday hablo badan leeyihiin waxa la oranayaa reer hebel inta soo hablood baa u jooga hadii ay dhalato waa laga sii walwalayaayo waxa la oranayaa inantu mar walba ma soo istaagi karto kulay booska wiilka inantii way dhalatay alxamdulillah way soo barbaartay markii dugsigii primary-ga la joogay inankii iyo inantii isku mid maaha inanka isaga waxa la barayaa qaabkii uu wax u baran lahaa noloshiisa u soo saari lahaa gooni baa loo maxay encourage gareynaya loola talinayaa dadkoo dhan waxay ku oranayaan waxbaro nin iska dhig macnaheedu waa maxay waa bulshada iska dhig oo waxbaro laakiin hablaha iyada waxa la oranayaa naarada aqalka masax inanka quraacda u diyaari like iskuulkay saaka wada aadeen iskuulka saaka markay wada aadeen ay maadaan bireegi inanku isagu meel buu fadhiisanaya inantu waxa lagu oranayaa yalla xijaabka dhig jikada gal inanka quraacda u soo diyaari maxay farqiga u dhaxeeyaa waa ardayad isaguna waa arday class buu ka yimi class bay ka timi way iyadu shaqaale u tahay oo ay quraacda u soo diyaarinaysaa oo isaguna u fadhiya adliist waxay ahayd inuu isaguna soo shaqeeyo iyaduna ay soo shaqeyso iyagoo faraxsan ay wada quraacdaan familyguna ay tusaan hablaha iyo inamadu yani inay siman yihiin bani aadamtinimada marka laga hadlo yani bulshadeena waxay haysataa caqabad ah baa jirta habluhu inay mar walba ka hooseeyaan inamada emotionally inay uga hooseeyaan dareen ahaan spiritually iyo naf ahaan inay uga hooseeyaan education inay uga hooseeyaan inantii aqoon ahaan dabcan inantii way soo barbaartay dugsigii sare la yimi waxaa laga yaabaa mostly hablaheenu dugsiga sare inaysan soo gudbin waayo dadka ugu badan aynu eegno hablaha Soomaaliyeed iyo inamada Soomaaliyeed 3 jibaar ama 2 jibaar wax ku dhow hablaha badan haddana waxbarashada markaynu joogno inamada badan taabacnaheedu waxa weeye hablaha inaan marka horeba levelka high schoolka hablaha loo soo gudbininba ama maamada umulaysa oo guriga hawlihiisa ku mashquulaysa ama nin baaba lagu dareeyaa iyadoo yar oo baybiyada oo teenage ah aan diyaarba ahayn amba garanaynba nolosha waxay high schoolka waa la isla soo dhaafay jaamacadii baa la yimi jaamacadii markii la yimi markuu lecturer-ku ku jiro xiisada inamada iyo hablaha uu wax u wada dhigayo isku si uma focus gareynay
almost macallimiinta Soomaalidu kale anu mar in badan oo aan wax dhiganayay muddo 12 sano oo aan hadda ardayda ah waxaan arkay macallimiintu inaysan u focus kareen hablaha iyo inamada isku si like macallinku wuxuu istaagayaa jaanibka inamada wuxuuna u sharaxayaa inamada mostly hablaha iyo inamada waxa badan mar walba inamada badan marka kalaaska la jiro su'aal baa ardaydu ku soo dhex tuuraya su'aasha ardaydu markuu ku soo dhex tuuro wuxuu focus ka siinayaa inamada hadduu hal inan ka jawaabo hay hablaha ma oranay say u badan yihiin macallimiintu inantu guriga waxbarashada laguma kaantaro haddii ay maadi noqoto iyo haddii diin noqotaba bugaagteeda way iska qaadataa way keentaa lama yiraahdo maxaad soo dhigatay xageed wax marinaysaa maxaad keentay laakiin inanka waxa loo diyaarinayaa competitions waxa loo diyaarinayaa waxyaabo fara badan even xitaa waxa loo diyaarinayaa waxyaabo waxbarashada ka baxsan oo external curriculum activity waxyaabaha la yiraahdo like suugaanta oo kale hablaheenu suugaaniyahan badan baa ku jira aan bulshada laga aqoon sidoo kale waxaa jira hablo fara badan oo leh xirfado u gooniya aan cidina aqoonin iyaguna iyo hibo u gaaraba waxaa jira inamada in loo sameeyo sports iyo waxyaabo ay ku jimicsadaan oo la kaxaynayo iskuulkii baa dhaqaale gelinaya investment sameynaya inamadii si ay sports u helaan oo u jimicsadaan oo jirkooda u dhisaan sidoo kale waxa la sameeyaa in la geeyo dalxiis iyo meelo inantu waxa la oranayaa waxaas adiga ma jiraan yani inantu waxay u dhaxaysaa meesha ay wax ka soo dhigato jidkay soo marto iyo aqalkay u dhaxaysaa yani qof bulshada wax ka og ma aha sida ay saa ugu jirto bay soo graduate garaynaysaa waxa la oranayaa adigu awal baynan baad hayde maxaad qaban inanku markuu soo qalin jabiyo inanka iyo inanta walaalaha markay soo wada qalin jabiyaan inanka hooyadii aabuhu way ka walwalayaan waxay u raadinayaan maalgelin bay u raadinayaan waxay u raadinayaan shaqo sida la doonaba loogu helay inanku inuu camal la'aan noqdo family-gu ma ogola طبعا laakiin inanta waxa la oranayaa iska joog maxaa ku dhibay haday shaqo soo hesho tusaale oo ay shaqada damacdo inay ku shaqaysato family-gu waxay u badan yihiin inay reject gareeyaan ama ay diidaan oo yiraahdaan iska joog waxaad cunto iyo waxaad cabto maada waayin iyo waxaad xirato gurigeena fadhi shaqa maxaa noo soo arkay teen marka qofku emotionally buu u dhimanaya marka inantu wax tala ah oo ay qaadanaysaa ay haba yaraatee ma jirto waa qof ku koray negative way may aragba cid soo dhaweynaysa haday istiraado guriga ka dhex sheekay ama wax soo bandhig ama wax sheeg waxa lagu leeyahay inaan baatahay fariiso like hablaha public speakers-ka ee meelaha ka hadla ama wax soo jeediya bulshadeenu dumar waalan bay u yaqaanaan waa si beelaayada waalayda meelaha ka qaydin jirtay baran yani qofna dhigto ma raaricinayo ma oranayo maxay sheegaysaa gabadhan maxay sheegaysaa maxaa la eegno ka caqabadu waxay ka jirtaa munaay bilowga nolosha gabadha ilaa iyo qabriga ay ka tagayso waxaan oran karnaa inanta Soomaaliyeed caqabad nololeed baa la socota caqabadaasi 95% maaha wax iyadu ay kasbatay ama ay iyadu samaysay waa wax outside ka kaga yimid markii shaqadii iyo waxbarashadii laga yimaado hadii ay inantii guursato waxay la kortay cuqdada ah yani inaysan iyadu waxba sheegi karin waxba aysan soo bandhigi karin wax kasta oo lagu yiraahdo waxay ku khasban tahay marka inay ku qaran ilaa yiraahdo xuquuq ma lihid kan ma lihid waxba ma lihid sida u noolo dariiqa loo jeexo bay ku noolaan kartaa marka hablaheenu maxay jeed tala qaataan ma aha dad iyagu select gareynaya ama dooranaya dariiqa ay ku noolaanayaan wada loo dooray intooda badan tabaa أنا براش كان كنا قلنا واحد صوص عبره وسيو كريمة وشرا قوة ذلك بدي سلو بسمعيه أما هذا بقى سمعيه سو حكوسو إذا كمبنيان أفكر في الأمر وذلك تبتدي بسا أما ذلك وصح runtii way isku jiraan kuwa baraan ah oo kambaniyo banaanka ka dalbado kadibna dalabaadkayga iyo orderkayga la igu keeno iyo kuwa aan sameeyaba ama materialka hala ii keeno oo anigu designkayga aan u dejisto oo aan diyaariyo sida cadarada collectionska la isku dardaro dadku isku carfiyaan aadna dadku u jecel yihiin sidoo kale creamiska materialska waan dalbadaa laga sameeyo dan waan sameeyaa sidoo kale waxa jira unsiyada laftirkooda unsiga qudhiisa uu isku jira unsiya waxa jira cud leedaahdo kuwa alxarameyn kuwa fara badan oo dalka banaankiisa laga keeno kuwaas waan order gareeyaa oo wala ii keena kuwa materialska aan soo iibsaday ama walxaha laga sameeyo oo aan anigu sameeyo oo magacayga ku soo baxana iyaguna waa ay jiraan waqti marina inta badan bulshadeena Soomaaliyeed
waxa marka dalka lagu sameeyo inta badan ma aamina sidee kaaga aqbalaan marka la wadaagto cream ama waxa aad soo saartay oo aad adigu samaysay runtii waa runo dadkeenu inta badan waxay jecel yihiin waxa banaanka laga keeno kaliya waxay ku jecel yihiin waxa weeye waxaynu haysanaa hal shay oo kaliya oo ah waxa iyagu maaha wax qurux badan oo tayo leh laakiin waxa qofka asaagay soo sameeyay waa wax wanaagsan hadduu doono wixii aad haysatay haba ka liitay markii hore runtii aan bilaabayay way adkayd su'aalaha ugu badan ay macaamiishu weydiiyaan waxay ahayd yaa sameeya xagee laga keenaa oo magacii kambaniga bay ku arkayaan xagee laga keenaa yaa sameeya ma adaa sameeya haddii aad adigu samayso waxyaabahan ama kiriimkan ama unsigan noo sheeg materialski waxyaabaha aad ka samayso bimacnaa ku qanci mayno ilaa aad tusto qaabka aad u samayso iyo waxa aad ka samayso waxaan ka baqaynaa hadduu kiriim yahay inuu waxna yeelo oo jirkeyga side effect uu ku yeesho laakiin taa hadda kulay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxyaabo badan isku dayay oo lagu guuleystay xogaa way sii minimize garoobaysaa ama way sii yaraanaysaa laakiin wali way sii harsan tahay in ay dadku ku weydiiyaan haddana kulay productsku waa ay socdaan walow de garaafkii aan ugu talagalay aysan ahayn laakiin haddana alxamdulillah bulshadu way soo fahmayaan waayo qofka businesska waxa looga baahan yahay inuu dulqaad iyo patient u yeesho waayo shaygan aad wado waxaad ugu talagashay inaad bulshada barto oo ay bulshadu bartaan kadib markii ay bartaan bay faa'iidada kula arki karaan macmiishaada dadka kala joogta waxaad u baaqaysaa كلي معاميشة بيزنسك حنسكو دينا the best way أما سيدا أقول أحسن إن أنا أقنعه معاميشة وحيابات هياله أو quality جود أسرعيه إسلامر كان أنفعية أو أن يجنا واحد بعتها أوجي سنة إن أنا كانوا كلي وحنا تعلنا هاي إن معاميشة كلي إن أنا قنعنا متشعرين وحنا تعلنا إن أنا صمينا إن أنا كانوا حيابك هيابية يعني وأيسن آمنين أما أيسن رميسان إن ودنك جوديهسا وحبها سين يالان أما لقيه لكرايو سيدا أو كمبني جرون وصمينا يوكروا قصعنا حنا تعلها معاميش ويجنا إنه يكروا بحال أو أي جرون وصميان أو أي هرق قصعنا إن شاء الله. إيدي بسودو فبدأ أنت بناس وجريسة قبله اللي قبل كوي ده إسقحين يستيارني أرسل يستيارني يجيبوا كتوده يروح الله صوّد المريض. إذا سمعت تايتل وصوص هو قرب شوكت اعتماده والله صوّد runtii إن شاء الله كلي دي معاميشو بقولك بقى سيدات ما حيكون حريهم بيجكا وحي عصبنا waxay kala soconayaan page-ka company uu leeyahay halkaas ay ka daalacaan doonaan kulay last designers wala soo gari doonaa insha Allah soo kala karimo productivity loo fiican waan keeni doonaa waxayba udiga oo runtii ciida dadku loogu talagalay lamaanayaasha iyo cid kastoo caraf iyo udgoon jecel dadka kale waa mushkilad ma leh hadii ay isudiyaan ama iscarfiyaan marka lamaanayaasha lagu xantaan isgooniyaa taaqodeedu waxyaabaha khaldan aynu aaminsanahay bay ka mid tahay yani gabadhu iyadoo kaligeeda xitaa waa tahay daawadayaal waxaa intaan noogu eeg barnaamijkeenii maandeeqaya maxaa cusub iyo sidoo kale horumari hibadaada oo maanta ay marti igu ahayd Maryan Axmed Cumar oo ayna dhalinyaro isla markaana halabuuro oo ah ganacsato isla markaana wax ku iibiso online-ka barnaamijkan waxay la socodsiinayaan Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeqa annaka ee bahda TV-ga Sam News TV isku duuban waxaan kaga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.